taliska booliska degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xarunta saldhigga booliska ee magaalada ku soo bandhigay aabbo wiilkiisa habeennimadii xalay ku gowracay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona aabbahan wiilka gowracay isla xalay uu ka baxsaday goobta uu falka uu ka dhacay isla markaana uu gaaray tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe hayeeshee booliska degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa halka uu gaaray ninkan la sheegay inuu gowracay wiilkiisa gacanta ku soo dhigay isla markaana dhigay saldhigga booliska ee degmada Jowhar taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Calcanjeex ayaa faahfaahiyay ninkan la sheegay in uu gowracay wiilkiisa iyo waliba sida ay u suur gashay inay gacanta ay ku soo dhigaan maanta shirkana jirad wuxuu ku saabsan yahay dhacdo shalay galab maqribadii ka dhacday magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed marka waxa dhacday aabba ayaa wiilkiisii ku dilay حالي مغربدي حلي قاعد يكون توسع إلى مغربدي ولا حيسو الحمد لله إلهي قدرت مثل ماشي كواتقنا إلى مدة بلوسك ماشي تجينا كوبحان نبكي ماشي كنا عيا أركان كده بنو وحيد دبقة لأن نكى يعني مرة نبكي جيستي أو أبوه هاي ويلك أو لا دلي صادرتها وحين نوصل شحالة 8 ساعة برا إنك سوق قبلنا تولد هلجن سيدا درتها ما أنت وحكوا حرينا سلقة بلوسك دقمود الجور بلوسك أيانك عنتك وهايو wixii faahfaahin oo dambe oo yani maaragtay sheeg maxay ahayd aan kala kulana ama baarisiisa ka soo baxnay dib ayaan u wadaagi doonaa warbaahinta doolaha insha Allah dibka sababaha dhaliyay hadda baarisi ku jirta arintii ninkiin dib ka geystay uu xiran yahay yani maaragtay booliisku wana marka hor dhici karno barkay qofku waxa macquul xataa ninku inuu amwaalna kariyo ama markaas ay xaaladiisu israacadiin ama beledkan waad ogtaa mukhadaraadkiisa badan mukhadaraad inuu cadays suuragal laakiin arintiisu baarisi ku jirta doolaha insha Allah marka jawaabta ugu dambeysana waxaan la qaybsan doonaa maxkamadda ay khusayso iyo yani maaragtay saxaafadda doolaha falkan ayaa ah mid ugub ku ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe marka loo eego dhacdooyinka kale Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar